magaalada Bahradar ee gobolka Amxaarada dalka Itoobiya waxa goor dhaweyd lagu soo gabagabeeyay shir saddex geesood ah oo ay lahayeen madaxda dawladaha Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea iyadoo madaxdu ay qaateen wada tashiyo qoto dheer oo saacado badan qaatay. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Eritrea Siyaas Afwerki iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa shirkooda labaad diiradda ku saaray isbeddelka taariikhiga ah nabadda iyo isdhexgalka gobolka Geeska Afrika. sidoo kale madaxdu waxa ay dib u eegis ku sameeyeen heshiiskii iskaashiga ee ay bilo ka hor ku saxiixdeen magaalada Asmara ee dalka Eritrea, horumaradii iyo waliba guulihii laga gaaray. madaxda ayaa waxa ay isla garteen muhiimadda ay leedahay in la ixtiraamo madaxbanaanida dhuleed midka siyaasadeed ee Soomaaliya, waxayna muujiyeen taageeradooda adag ee shacabka iyo dawladda Soomaaliya iyo hay'adaheeda. waxa kale oo ay amaaneen dadaalka dawladdu ugu jirto soo celinta nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliya. madaxda saddexda dal ayaa soo dhaweeyay dadaalada la doonayay in cunaqabataynta looga qaado dalka Eritrea, taasi oo lagu wado in dhawaan golaha ammaanka qaramada midoobay uu ka qaado cunaqabatayntii saarneyd dalkaasi.